واحد دقالكم بوقع بسدي شلع الهريري بريجيس ماشي اللي يراها جرس مجا ظهر كموجي لو ويسق عدنا هذي سيدان قدام كعمل حبض أبو باللوني مخرج كعادي بالموجي جلا أنا انتصر لعبنا واحد دقن حالة دقانة على الهريري جرس مجان إيا مباح ورنماتو كواترسان قبل كيران كنا دوحاتك كلا قيبية قبل هذا هيران يشبه لها دحي إسلام أركان أنت بدن جهة أهان دنك كوفراد وقعدن دقمة مقوكرو قبل كيران يدقنا كلو كم داعي دقان كهرير مدوبة وإسنا دنك بري وقعدن دقمة مقوكرو قبل كيران إسلام أركان جوها لقي إلى يدماتود أمانك دقمة مقوكري يدقنا بدن وكيا الله بري قبل كيران ويدور جار قوارث الصادة مع عسي شلو قدام يسينا كوحدة قوارث الدولان يكسو قاضي سيوقف سنة دقنا داسي بلسي سياسة دفاع دقانك ووحدتك دقانك وقاتي هفكودا إسلام أركان كاسنة عيدمada qaranka ayaa ka hortagay damicii kooxda qawaarita halkaasina jab xooggan ku gaarsiiyay waxaana ku sugan dhammaan goobahaasi ciidamada difaaca deegaanka oo kaashanaya geesiyaasha qaranka kuwaas oo 10 milyan ugu dhigay kooxda qawaarita ee soo damacsay deegaanada hoosaga degmada Moqokoro gobol Kiran kuna dhow xataa kala qaybiya gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kooxdani dacasleeda dilnaawiyaasha ah waxaa damacoodii ciida ku rogay geesiyaasha difaaca deegaanka oo alla aaminsan kaashanayana ciidamada qaranka aqoonna u leh sida loo gumaado dabadhirafyada dulaysan ee maqaarsaar ku aashashayaha diidana amniga iyo qarannimada Soomaaliyeed hilibkoodiina hadda u waray oo midadka kooxda qawaarita ayaa tarab u yaala goobihii duulaanka ay ku soo qaadeen ee hoosaga degmada Moqokoro gobol Kiran waxaana looga dilay maafiyada qaawan dagaaladaasi ku dhawaad 100 dhagar qabe goobaha midadka qawaarita ay ka carareen la geeyeen waxaa kamid ah degmada Moqokoro gobol Kiran sida saraakiisha qaranka iyo kuwa difaaca deegaanka ee ku sugan furmo hore dagaalka deegaanadaasi ay sheegeen waxaana ay sheegeen saraakiisha difaaca deegaanka iyo kuwa qaranka ee ku sugan furmo hore dagaalka inay wali wadaan baasiga qawaarita iyo waliba soo ururinta midadka ay ka carareen kooxda qawaarita sidoo kalena waxay sheegeen in hub looga furtay dagaalkaasi qawaarita dhowr dhagar qabana nolosha ay ku hayaan xilligan waa kuwan qaar kamid ah geesiyaasha difaaca deegaanka oo dadka deegaanka oo qaatay hubkooda faahfaahin ka bixiyay guulaha ay ka gaareen kooxda qawaarita duulaanka ku soo qaatay deegaanada hoosaga degmada Moqokoro gobol Kiran ayagoona sheegay inay sii wadi doonaan baasiga iyo ciribtarka haraadiga kooxda argagixisada واحد دقالكم بوقع بسدي شلع الهريري بريجيس ماشي اللي يراها جرس مجا ظهر كموجي لو ويسق عدنا هذي سيدان قدام كعمل حبض أبو باللوني مخرج كعادي بالموجي جلا أنا انتصر لعبنا ساعة كي سدح ساعة موجي هذي داو عود يجيق دقالي وأوجد دبيي أيا لقول داو عتري جيق مالو موقتة دقمة عادي موقتة دقمة عادي يبال أنا كشباب هدول نوي مادو واحد نجد جوان أنت جبر نجد دبيدو إن دبت جوجين دل كمال الله ما شيء وجزوران مركا شبابه أما إركا جرى سارو أما عيد دجال أما سودول قال كات وده طلع وحلا تتكبرنا كتوجينا كابا ما هينا ميتاجنا واجيدينا ما نحن قلت لك هاسدنا جنة أدنى هي كلي جنة أدنى هي اللي غيري جنة أسعى هي اللي نين جنة أسعى ده وضد مكعرية ما حرعي جنة أسعى ده هو بقدر ما تشران واحد أنا اللي راهم مسؤول أنا محمد رسول الله عند كل من يدانك وأنا قواري لكن كبقدر هنا وأنا قواري تكلم وأنا قارت لك جوية ما الله ماشي جوجان عدة كبقدر هذا هكوسون أنا قارب كل تاجر أيون المقرع سقط ما يسنا يا قواريشتي يقصقش قواريشتي مركي يقصقش شيء بيولا عبي سيرين بيدين محايان دهاي مركي بيدين محايرين ويجو جبر ويجا نغان مذاك هي حنبت كينا ساق قرقا ساق فرت دوري داسان قفرت دوري داسان قفرت ساق قالنا ولا لجهاد أسيس بنا بدوك منك هو صقل تواريخنا ولا جهاد يا شاء الله ولا جهاد أنت ما سينو لك ولا جهادنا ولا جهادنا ما شاء الله ولا ساس بلا تجوجا sidaan oo kale dhamaadkii sanadkii 2022 ayaa qawaarita lagu xasuuqay deegaanka Ceel Hareeri waxaana dagaalkaasi looga dilay qawaarita in ka badan 300 oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda qawaarita waana markii saddexaad oo ay sanadkan gudihiisa kooxda qawaarita ay wareey ku soo qaadaan deegaanada hoosaga degmada Moqokoro ee gobol Kiran geesiyaasha deegaanka oo dadka deegaanka oo qaatay hubkooda iyo kuwa qarankuna ay ku jibiyaan argagixisada hilibkoodana hadda loo waray
saraakiisha ciidamada difaaca deegaanka iyo kuwa qaranka ee ku sugan furmahaasi ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada lagu ciribtirayo kooxda khawaarijta ilaa inta laga saarayo guud ahaan geyiga Soomaaliyeed waxaana dabaaldegyada lagu bogaadinayo geesiyaasha deegaanka iyo kuwa qaranka guulaha ay ka soo hoyeen dagaaladii kooxda khawaarijtu ay ku soo qaadeen deegaanada hoosaga degmada Muqdisho ee gobolka Hiiraan ay ka socdaan dhammaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan dadka reer Hiiraan ayaa gib ahaan iska diiday ficilada guracan ee kooxda khawaarijta Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse warbaahinta qaranka Beledweyne